تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه. ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه. كن بهذا العصر من أعلامه. كن سعيدا، كن فريدا، عش بفخر في الحياة. لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا، كن فريدا، عش بفخر في الحياة. لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنما المشتاق للمجد التليد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عاذنا الله منها ما يقرون من قوله وعمل. waxaan mahad celinayaa awala marka hore Allah subhanahu wa ta'ala inoo fududeeyay inaan halka isugu nimaadno. waxaan isugu nimay gurigii Xaawo Muumin Bayr oo loo dhisay. gurigaas oo ka kooban inta uu hadda ku dhisay 18 saddex waa hal qol iyo barkad iyo suuli iyo deer yar oo maartay kooban. gurigaas Xaawo dad walaalo oo muslimiin baa dhisay oo dibadda u badan, dadka dalka joogana waa ka qayb qaateen. dadkaas guriga waxa wargelintiisa soo siisay iyo xogta Xaawo anagoo magaalada Carmo ku wada nool, laakiin xogteeda la soo siisay Caasha Xasan Ibraahim Ilaahay barakeeyo. dabeedna dad iyada hormoodu ahayd xogta iyadana la wadaagtay. dabeedna waanu booqanay gurigeedan u tagnay. gurigeedan u tagnaa waxa weeye waxay sabab u noqotay in gurigan loo dhiso, iyadoo magalaysa xaaladeedu xoogaa ay guriga ay degan tahay adkaa. Ilaahay barakeeyo. dadkaas marka banaanka jira baa xooga qayb qaatay, sida Maxamed Shire Faarax oo kale iyo dad badan. guriga qiimaha magalaysaanu injineerku wuxuu ku qiimeeyay 3,460 adoo lacag 70,000 baa hadda magalaysa baan soo gaaray. $120 baan soo gaarin. inta kale guriga gashay maanta uu magalaysa ay taariikh u tahay 3 bishii 10aad 2018 maana arbacaan ku wareejinaa Xaawo maartay gurigeedii oo ay maartay isu diyaar garowday oo maanta uu dhamaaday. waqti gelin badan baanu gelinay oo suuro waan u adkaaday. meeshu waa meel magalaysa xogaa hawshada adag tahay. marka Xaawo gurigeeda marxaladaha soo maray maanta falillahi alxamdu isagii baan diyaar u nahay inaan ku wareejino. ka badanna waa loo qaban lahaa, laakiin intaas tabartu noqotay. intaasna iyadana magalaysa alxamdulillah waa faa'iido heshay. buqaadu xagga waa ugu soo banaantahay, waa u sii jiraa. waxa dhulka bixiyay oo magalaysa Ilaahay barakeeyo maalkiisa iyo naftiisaba Maxamed Sutul baa booska bixiyay oo u deeqay. dadka muslimiinta ayna waa u dhiseen. waxaan leenahay marka aan ku dayano gurigan iyo noqon gurigii ugu dameeyay. insha Allah waxaan rajaynayaa in gurigii ugu horeeyay haddaba guri kala balwaday saas oo kale to walaalaha muslimiinta ay Carmo ku nooleeyay u dhisayaan maamo saas oo kale iyana oo maartay oo iyana aan meel ku yeeto lahayn. marka insha Allah waxaan boorinayaa mar kasta inaynu dadka masaakiinta, dadka tabarta yar inaynu u naxariisano, inaynu ka warhayno, inaynu mar kasta magalaysa maalkeena wax ka siino, caqligeena xooggeena wax ka siino, waqtigeena wax ka siino. saasina wax ugu qaban karaa. maalkuna kaga yaraan maayo. Ilaahay inuu ku barakeeyo maahe. marka Xaawana gurigeeda haddaan ku wareejinayna Ilaahay idin barakeeyo. intii magalayska qayb qaadatay, intii waqtiga gelisay, intii maalka gelisay, intii fikirka gelisay, intii magalaysa ay gurigan inuu walaal marxaladeeda wax laga bedelo oo guriga loo dhiso, intii ka qayb qaadatay waxaan leenahay oo talo ku yeelatay. meel kasta ha joogeen, dalkii dibadda ha joogeen. Ilaahay barakeeyo, naftoodii maalkooda u barakeeyo, aakhirada Ilaahay dibadda uga dhigo, miisaanka xasanaadka Allah u saaro. saasaan leenahay insha Allah. markasta aan ruuxi dhiirano wax badan bayna qabsan karaa haddaynu magalaysa isku tashano oo magalaysa ay markasta inuu maxaynu qaban karnaa inaan wax badan bay qaban karnaa. ilaahay sawir Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi
haddana maxaa waxaan ku wareejin الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي سبحانه وتعالى أولا مهد إسكاله بعد الله وحان آدو مهد علينا dadkii walaalaha ahaa arintan isu xil saaray maaragtay waqtigoodii iyo maalkooda iyo ku bixiyay ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan leenahay meesha ka bixiseen bedel khayr qaba Allah idinku bedelo aqliga iyo cilmiga iyo aqoonta aad geliseen injineeradii ka shaqeeyay sida injineer Saciid sida maaragtay injineer Abshir oo garabkayga taagan ragii kale la shaqeeyay iyagana waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala aqligiina cilmigiina Allah idin barakeeyo walaalaha dibadda jira oo waxa weeye kuwa dalka joogaba rag badan dalka jooga ka qayb qaatay kuwa dibadda jira ka qayb qaatay kulligood waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala meesha ka bixiseen bedel khayr qaba Allah idinku bedelo runtii dadku waxba la qabsan karaa dadka masaakiinta waxba loo qaban karaa dadku ummaddu inay isku tiirsanaadaan oo waxa weeye Soomaaliya ku mahmahdaa gacmooda jirbi ay ku gooyaan waana garanaysan xadiiskii Nabi sallallahu alayhi wasallam oo ahaa waxa weeye muxuu ahayd irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama naxariista dadka dhulka jooga waxa weeye wixii dhulka jooga ilaahay baa idinka naxariisanaya xagga samada ka naxariisanaya sida daraaddeed marka in la isu naxariisto oo maaragtay wax badan baa la isu qaban kala la isu qabto hadda waxaan ku talinayaa waxa weeye runtii ma aha gurigii kuwaasii Sheekh Saciid sheegay guriyo badan baa hadda runtii laba islaamood oo waayeel oo indhala ayaa hadda galba guri looga dhisay magaalada islaan kale oo waayeel oo 100 jira oo wiilkeedii oo 80 jira uu hayana hadda gacanta loogu haya iyadana waa u socotaa runtii waxaan leeyahay reer Carmo iyo dadka maaragtay khayrka jecelba hal la wado khayrka ilaahay bayna ku naxariisanaya khayr bayna ku helaynaa ilaahay bayna ku barakeynaa subxaanahu wa ta'ala marka meeshan joogna waa iska adduunyo oo hadii ayaa iska sii joogno iska tageena laakiin in waxay ka hormaraan وتزودوا فإن خير زاد تقوى وتقون يا أولي الباب الله سبحانه وتعالى marka in saad qaadano oo sahay sii geysano oo hore wax u dirsano 10 dollar aad bixiso 100 aad bixiso 200 aad bixiso 1000 aad bixisa waa waxa ay ku sii hormaray iyadana raasumaal ku ah marka insha Allah ta'ala ayaan leeyahay waana idin ducaynaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala idin barakeeyo meel kasta joogtaan dalka iyo dibadda dadka jooga waxaan leeyahay ummadaha loo gurmado wixii loo qaban kara loo qabto insha Allah ta'ala sidaas weeye barakallahu fiikum Allah idin barakeeyo hadeena xaawan insha Allah ta'ala ku wareejinaa gabadheedii xaawo furihii gurigeeda waa lagu wareejiyay barakallahu fiik haye بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد إن شاء الله وحنو دعينا ولا لها ونما وسلام يا ولاد ولا لها قرمة كبدني قلي وسيد النظام كوناكسن إسماعي إلهي الحمد ما حد ما نعلن يا ربي بقى وحوي إلهي نسيه تذكرنا معمولية وانا قبضن له إلهي نسيه بان حمد ونقينا إن شاء الله وانا ودعينا وانا إذنك قدوم يقولي خير قبضنا وتذكر كغيب قاطي إذنك يكون لسي يكون غبغابي يكون نور لسي كل بقى وأنا مهد علينا الحمد لله رب العالمين إلهي نسيه تذكر بانو مهد علينا وذا بقيش وذا تذكر قانك وأنا مهد علينا إلهي يا ربي وأنا كم مهدني أنا وأنا كقدومي وأنا إذن كقدومي آخره يدونا وأنا إذن دعينا إنه حين وإلهي إذن كدو آخرنا الجنة إلهي إذن فريسيو أدون كان إذن برباريو إن شاء الله بسم الله كريم أنا وأنا غفتا ولوس وبر ولوج جاي محي هيدا أبالنا إله باسكالي ولا أبال باسكال أبال بانودين هنا تطو أبال مجودو لكن أبال إله باسكال أبال بانودين هنا وأنا إذن مهد علينا الحمد لله إذن كي ربي بقى وأنا إذن دعينا الدعاء وأنا إذن كوركو فينا سيدا يا دمان وأنا إذن سلامنا مل أجوك تندل يدبت يدرف بقى إن شاء الله بسم الله كريم تدي الدنيا إلهي إذن أمره إلهي دافع إذن كدو إلهي عافما إذن سيو إن شاء الله بسم الله كريم أنا إسلام ويلا وأنا إذن ما أنا وأنا إذن سلام يا سيداس يو نبتة جليو